wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Abuubakar Cismaan oo ay weheliyeen maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka maareeya ku-xigeenka mas'uuliyiin sarsaro ka socota wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo hay'adda horumarinta wadooyinka ayaa soo gaaray degmada Garadaga galbeedka gobolka Sanaag wafdigan wasiirku hogaaminayo ayaa markii ay soo gaareen degmada Garadaga waxaa ku soo dhaweeyay degmada maamulka heer degmo Cuqaal iyo Waayeel iyagoo dhammaanba mas'uuliyiintan soo kormeeray sida habsamida u socoto shaqada maalinlaha ah ee shaqaalaha hay'adda wadooyinku wafdigan ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daafuray wajigii saddexaad ee dhismaha wadada isku xidhaysa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer qaybteeda degmada Garadaga iyo qaybtii ka soo socotay Ceel Limcoon oo haatan maraysa Fadhigaab dhammaanba mas'uuliyiinta gacanta ku haysta dhismaha wadadan oo ka warbixiyay ayaa sheegay inay haatan shaqadu u socoto si habsami ah sidoo kale iyaguna mas'uuliyiinta heer degmo ee degmada Garadaga iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Fadhigaab ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo wasiirku kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haysta dhismaha wadada oo ka warbixinaya sida ay u socoto shaqadu waa itus oo taabsi sidaad wada arki doontaana waxaynu tagi doonaa qaybtii karashka soo aragteen waxa ku xigi doona site-kii Garadaga oo nimka taaganahay Fadhigaab oo soo dhaaftay oo joogno Shumburachuja dooxa Shumburachuja ayay shaqadu maraysaa runtii waxa weeyaan sanadka imka insha Allah bilaamayna waxaan ku rajaynaynaa 740 kilomitir oo ka dhiman isku xidhka maanta waxaan isku xidhaynaa degmada Garadaga iyo degmada Ceelafeen oo ay nooga hadhay waxaan qiyaas ahaan ku qiyaasayo 20 kilomitir waa aragtaan wadada weydii soo gaadhay waxaan idin ka codsanaynaa deegaanka halkan in si fiican anagoo ka mahad sheeganayna deegaamadii hore ee Ceel Limcoon ka mid tahay ee geedi ka mid tahay Fadhigaab ay ka mid tahay tuulooyinkan soo marnay oo dhan si fiican ba walaal loo soo dhaweeyeen idinkana tiyo kale idin ka rajeenaya waxaan kaloo ka saacad wasiirkaaga sheegaya inay joogaan shaqaale aad iyo aad u wanaagsan oo waqtiga cadeeda taagan oo u baahan dadka shaqada qabtay in loo mahadnaqo dadkana waan u mahadnaqaynaa waxaan warbaahinta ka codsan baan dadkii u muuqanayno waxa dhibta ugu badan ku dhacaysa motor iyo ciidi laakiin motorka waxa wada qof ciidana waxa dhigay qof meesha waxa jooga shaqaale 200 waa shaqaale tababaran shaqaalahaas inta meesha ku dhimatay walaa 6 qof xanuun ugu dhinteen masasa ku cuneen qaadde bacadka wadno haystaageen waa mujaahidiin baan dhahnaayo annagu waxna mujaahidiinta la wada leeyahay baan dhahnaa kuwan daayliyo isla wadada caad lagu furo waayo anagu hadda gobolka Sanaag hadda arkaawada hadda loogu jirtay marka laayo waa la dhigayaa waxaanu cadbaa soo maray waynu arkaynaa dad aan waxba ku darin inay dacaydiyeen waan taageero iyo aanu hatta moral support ku dawaamide aanu geysanay dacaydiyeen raali kama nihin waana ka raali gelinaynaa dhamaanba ilaa wasiirka ilaa shaqaalaha ilaa Soomaaliland cid ka soo wadada ku hawlan waanu ka marinaynaa wafdiga qaaliga ah ee soo boqday wasiir Cabdullaahi Abuubakar hogaaminayo injineerka guud injineer xigeenka shaqaalaha waxaana maanta noo farxada wadada marayso waxaanu mar labaadka mahad u jeedinaynaa xukuumaddii hore Axmed Siilaanyo ee wadada dhaqaajisay waxaanu iyana mahad labaad u jeedinaynaa xukuumaddii dambe Muuse Biixi ee sida hagar la'aan u dhaqaajisay maanta waa runtii gobolka Sanaag injineerka guud inoo sheegay waa sayidkii Fadhigaab runtii waxa weeye wado soo dhaaftay wadadii oo arkaawada waa talka maraysa sayidkii galbeedka waataynu soo marnay shaqada runtii aad iyo aad bay u socotaa dhammaan waxaan halka uga hambalyeynaya aadna u salaamaya waayeelka iyo waxgaradka iyo guurtida deegaanka Fadhigaab ama guud ahaan degmada Garadaga guud ahaan gobolka Sanaag oo runtii si fiican oo firfircoon ula shaqeynaya wadada ugu soo dhaweynaya shaqaalaha hay'adda wadooyinka waxaan si gaar ah u salaamayaa wasiirka jidadka iyo gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo runtii juhdi badan soo geliyay ama waqti badan ku soo lumiyay inuu soo booqdo gabagabada sanadka wadada tan waxaan aad u salaamaynaa nololeed waan ku celinayaa mar labaad baan ku celinayaa hadda Soomaaliland marka laga hadlaayo shaqaalaha ugu mushaharka badan leh ee dawladda Soomaaliland ay mushahar siisaa waxa weeyaan waa shaqaalaha hay'adda horumarinta RDA ka halkan joogay ka Hargeysa jooga darawalka inuu ka mushahar badan yahay darawalka dawladda makaaniga inuu ka mushahar badan yahay operatorka inuu ka mushahar badan yahay waxaan markaa u garanay in lacagta la idin siiyo duruufta aad ku nooshiin nin kasta gurigiisa waa ka yimid wuxuu joogan halkaas uu jooga
marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dhammaanteen inagu asturo xilka aynu wada qaadnay waxa kale oo idinku la dardaarmaya shaqadu ma dhamaato laakiin ninkayga dhamaado way yiraahdaan reer xamarku shaqay naga dhamaan mayso haddii Allah wada loo ogolaado tan hadday dhamaato mid kale ma xigeynaa Soomaaliland waxaan u baahanahay 9,838 kilomitir oo wadooyin la dhiso tan waa 300 aynu imika muddo 9 bilood dhisaynay marka dalku wuxuu u baahan yahay horumar ballaaran si loo gaaro in la sameeyo waa Madar Sneere warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag